bismillaahi raxmaani raxiim. kulan wanaagsan saaxiibayaal idilkiinba kuna soo dhowaada xubinteena murti iyo maahmaah oo maalin walba aan idinka soo gudbin doono Milga News. waa maahmaahdii ugu horeysay ee aan ku bilaabayno xubinteena oo sidaan soo sheegnayba joogta ahaan doonta haddii eebba idmo. waa maahmaah facweyn oo ka mid ah foolhoraadka maahmaahyada Soomaaliyeed. sida goordhowba aad ka markici doontaan, waa maahmaah leh miisaan iyo qoto dheer. waa maahmaah xambaarsan xikmad culus. waa maahmaah aan huba in aad ka heli doontaan waxna ka faa'iideysan doontaan. waa maahmaahda tiraahda: rag waxaa ugu liita nin hadduu jooga aan la tirin, hadduu tegayana aan la celin, hadduu maqan yahayna aan la tabin. inkastoo maahmaahdan ay garanayaan dad badan oo idinka mid ah, haddana waxaa xaqiiqo ah in ay jirto dhallinyaro badan oo ay ku cusub tahay. dad waaweyn oo laga yaabo in ay u hor leedahay maahmaadani, dad badan oo aysan ku cusbayn laakiin aan fahmin ujeeddadeeda rasmiga ah, iyo kuwo ay dhici karto in si uun ay u fasirteen hase yeeshee aan asiibin tilmaanteeda saxda ah. haddaba innaga oo ka duulayna arrimahaas iyo kuwo kaleba ayay lagama maarmaan nala noqotay in aan sharaxaad ka bixinno tilmaamaheeda iyo micnaha lagama maarmaanka ah ay leedahay. marka hore aan idinku celiyo maahmaahada: rag waxaa ugu liita nin hadduu jooga aan la tirin, hadduu tegayana aan la celin, hadduu maqan yahayna aan la tabin. saaxiibayaal, maahmaahdu waxa ay ka hadlaysaa qiimaha iyo waxtarka laga shinsado ragga iyo meesha qofka lagu hungoobay ugu qoran yahay bulshadiisa. runtiina yoolkeedu waa ninka aan laga helin hankii loo qabay iyo kaalintiisii. waa ninka bulshadu tiraahdo hebel waa wax matare. waa nin looga quustay in mar keliyana laga helo hiil, hoo iyo cilmi iyo caqli kuu doonaba ha ahaadee, hadal wax ku ool ah oo lagu diirsado inuu mar un ku tiraabo. qodobka koowaad: nin isaga oo jooga aan la tirin. waa nin maalin keliyana aan lagula baqan culays jira. sidaa darteed marka ay arrini cakiranto, waa ninka aan marna ka mid noqon magacyada durbadiibaa la isla sheego marka laga jawaabayo su-aasha ah: rag allow yaa arrintan wax ka qaban kara oo maanta aan u irkana. taasina waxa ay keentay in qofkaasi marba haddii xaalad jirta uusan waxba ka qabanayn haba yaraatee uu noqdo qof aan la tirsanayn ama aan ku xusnayn liiska dadka macnaha ula bulshada. qodobka labaad: waa nin haddii uu tegayo socdaal dheer iyo mid gaaban kuu doonaba ha ahaadee, aan marnaba bahdiiso ku dhegin oo aan la odhan hebelow sina lagama maarmo, sidaas daraaddeed hanaga tegin. qodobka saddexaadna waa nin isaga oo maqan aan marna la odhan allaylehe maanta waa maalintii loo baahsan jiray hebel oo isaga ayaa tanoo kale xallin jiray, nasiib darrase wuu inaga maqan yahay. ugu dambaynna maahmaahdani waxa ay tilmaamaysaa in ninka hadduu jooga aan waxtarka lahayn, hadduu tegayana aan la ceshan oo aan lalahayn hebelow kaama maarane hanaga tegin, hadduu maqan yahayna aan la odhan wallee hebel baa maqane, culayskan mar hore ayuuna weydaaran lahaa oo si sahlan ayuu u xallin lahaa. sidaa darteedna aan maqnaantiisa lagu xasuusan. intaas iyo tilmaamo kale oo badan oo qayb ka ah qaymaha iyo waxtarka laga doonayo wiil kasta ayay maahmaahdani kulmisay oo waxa ay tiri: rag waxaa ugu liita nin isagoo jooga aan la tirin, isagoo tegayana aan la celin, isagoo maqanna aan la tabin. aad ayaan u filayaa in aad ka bogateen maahmaahdan, aadna fahamteen xigmadda ay xambaarsan tahay iyo ujeeddadeeda. intaas ayaan ku hakinaynaa xubinteenna murti iyo maahmaah qaybteeda koowaad. haddii alla idmo waa inoo berrito hadahan oo kale xubinteenna murti iyo maahmaah oo aan idinku soo bandhigi doono xigmad kale. waad ku mahadsantihiin wakhtigiinna qaaliga ah. si aad ula socoto oo aysan kuu dhaafin xubnaha kale ee soo socda, fadlan taabo halka ay ku qoran tahay subscribe. ku xirnow Milga News Online.